waxaan rabaa inaan si gaar ah uga hadlo nin in muddo dheer ku amar taagleynaya dadkan masaakiinta ee Cabdullaahi Cali Caray dadku u yaqaaneen laakiin dadka deegaanka ii sheegeen in la yiraahdo Cabdullaahi Laaluush qaati ugu weynay ee qarnigan uu noqday wuxuu gaaray dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu 20 qof ama 30 qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal kadibna odayaasha uu yeeray ana soo deynaa $500 keen oo yiraahdo gaaray ummadana waxay u bixisay Laaluush qaati qarniga Cabdullaahi Cali Caray xaqiiqadu wuxuu dadkan ku sameeyay adduunkana waa u taala aakhirana waa ugu horeysa waxa la ii sheegay dad masaakiina oo maaragtay ilmo yatiin oo waalidkooda dhinteen inuu tahay xoolooda iska soo watay wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay wuxuu iska indha tiray aayadii quraanka aheeday in alladina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi budunihim naaran wa sayaslawna sa'ira aakhiran aayadaas kaaga horeyso xooli agoontood cuntay adduunkana laga hirma Cabdullaahiyow dadku deegaankana waxay sheegeen in lagu yiraahdo Laaluush qaati qarniga ninkii Laaluush uu banay dadkan masaakiinta ka qaadaatay dib damban ummadan waxaan rajaynayaa inaan wajigooda u imaan doonin ilaa idankiisa adduunkana waa laga gooyhaa aakhirana waa laga gooynayaa oo khaladaadkii aad gashay ummadda dhibaatada u geysaa kaaga horeyso